waxay soo ifbaxday dowladii Tataarku sanadii 603 Hijriga. Magaca ay markii hore ku soo baxday wuxuu ahaa Mongolia, waxayna ka soo baxday waqooyiga Shiinaha. Hogaamiyaheedii ugu horreeyay wuxuu ahaa Genghis Khan. Macnaha ereygan laba macno uu yeelan karaa af Mongoliska. Mar waa nijaas marna waa boqorka boqorada, laakiin magaciisa dhabta ah waa Temujin. Wuxuu ahaa dhiigyaab, waxa kale oo ah hogaamiye militari oo dhib badan. Wuxuu lahaa karti aad u badan oo ay dadku ka haybadaystaan. Wuxuu ku bilaabay dhul ballaarsi dowladihii la deriska ahaa. Ma joojin dowladiisu kamana nasan dhul ballaarsiga. Waxay haysteen Tataarku diin gacan ku rumisa. Waxay isku dardareen diimo badan, sida diinta Islaamku ay in ka soo qaateen, ta Kiristaanka, Buudhiska iyo sharciyo ku daray Genghis Khan. Waxaas ay isku dardaray oo sharciyo iyo diin ka dhigay. Markii dambena wuxuu ka dhigay dastuurka Tataarka, wuxuuna ugu wanqalay Alyasaak ama Alyasiq. Waxay dagaalada Tataarku la yimaadeen arrimo aan hore looga arag dunida, sida argagixin degdeg ah oo laga cabsado, xukun iyo kala dambeyn aad u sarreysa, tirada ciidanka oo diigaanyo ah, iyo duruufo dhib badan oo ay u adkeysan jireen. Waxay ahaayeen dagaaladoodu burburin aan hore dunida uga dhicin. Waxaad maqlaysaa waxay galeen magaalo Hiblaayo, dhammaanteedna dhulkay la simeen, dadkeedna markama baxsan, iyagoon u kala saaray nin iyo gabadh, mid yar iyo mid weyn, ilmo yar iyo mid kaboobay, mid birmageyda ah iyo mid dagaalamay, gumaad siman oo argagax badan, iyo dabeecad dhiigyaabnimatii ugu sarreysay oo aanay gaarin xayawaanku xitaa kuwa hilibka cunaa. Waxay ujeedadooda amar ku taagleynta iyo ciribtarka dadka. Ma aqbalaan fikirka dadka kale, waxay jeclaystaan bayna sameynayaan, iyagoo ku faanaya waxaan nahay quwadda koowaad ee adduunka. Wax wada hadal ahna lama galaan dowladaha ku wareegsan. Waxay ku andacoonayeen in ujeedada ay dunida u yimaadeen ay tahay inay toosiyaan diinta, cadaaladuna ay dunida gaadho, ayna ka ciribtiraan wax alaalay wixii fitna wadayaal ah. Sidoo kale wax ballan la yiraahdo ma yaqaanaan, wax uga sahlanina ma jiraan inay ballan ka baxaan. Sifooyinkaasi waa sifooyinka asaaska u ah dowladooda ee dhidibada loogu taagay. Mana baajin oo mana jibin marxalad kastoo ay marayaan, maalintii aasaasantay iyo maalintii dhacdayba. Baalna qeyrin ma daayo, ragna caadadii ma baajiyo. Waa sifooyin in badan kusoo noqnoqda ciidan kasta oo aan qawaaniin ka dhigan shareecada Ilaahay uu soo dejiyey. Qolo kasta oo isbidda awood fududaystaan diinta sawirkan bay yeelataa. Waxay sheegeen inay cirib tirayaan dambiyada. Halka aynu kaga nimaadno waxay yihiin markana aynu u galno tallaabada xigta. Duulaankii ugu horreeyay ee Tataarka waxa uu Genghis Khan ku fikiray wadada ugu wanaagsan ee loo ridi karo dowladda Cabbaasiyiinta ee Ciraaq. Waa khilaafadii daciifka ahayd ee muslimiinta. Dhulka Ciraaq iyo Shiinaha waxa u dhaxaysa masaafo dheer. Haddaba waa inay jiraan qaanuuno adag oo lagu dhaqo ciidamada Tataarka ee u kala baxaya dhulka u dhaxeeya Ciraaq iyo Shiinaha. Sidoo kale ay tahay dhul lagu yaqaan qaaba qowsiin oo buura ah, iyo dhul qani ku ah barwaaqooyinka dabiiciga iyo kheyraadka dhaqaale. Waxa kale oo ahayd meelaha muslimka ugu caansan, ayna yaalaan qasnadeeda iyo maalkeeda oo tiro badan. Marka waxa uu cadaatay inaanu kula dagaalami karin taatiko. Lama dagaalami karo Ciraaq oo dhabarka ku haysa muslimiintaas oo la dagaalami doona marka uu galo dhabar jibin ku samaysa. Intaa kadibna ay wadada ka xidhaan oo uu gurmad waayo. Markuu dhammaan eega arrimahaas, Genghis Khan wuxuu ka fikiray inuu dagaalaystaba jooga galaabixiyo goboladan bariga ee dowladaha Islaamka si uu wadada u banaysto. Halkan agtiisa waxa ah dowladii weyneed ee Khawaarsimiya. Waxa uu eegay Genghis Khan inuu heshiis kula jiro boqorka dowladda oo lagu magacaabo Maxamed bin Khawarsim Shah. Inkastoo aanu ahayn Genghis Khan nin ay ballantu ku weyn tahay ama damba ka gala, laakiin heshiiskaas wuu galay isagoo ilaashanaya danihiisa iyo inaan dhabarka laga jabin oo rabshado kaga furmin wadamada bariga Aasiya. Waxa uu tafaxaytay dhul ballaarsi. Waqtiganina waa waqtigii dhidibada loo aasay Shiinaha iyo Mongolia. Haddaba dagaalku si uu noqdo mid ay labada dacalba ku qancaan, wuxuu Genghis Khan raadiyay sababo keena dagaal, balse ma helin. Laakiin waxa dhacday arrin degdeg ah oo aan la filayn. Genghis Khan aanu sugin, waxay noqotay mid dagaalka lagu geli karo. Waxay ahayd mid soo boodo ah una sahlaysa Genghis Khan sidii uu rabay, oo ah inuu dagaal qaado. Haddaba maxay tahay waxyaabaha ka caawiyay Genghis Khan inuu dagaal ku qaado dowladii Khawarsim? Waxay israacday koox ganacsato oo ka soo kicitay Mogol, kuna socda magaalada Atrar ee muslimka ahayd, kana tirsan jamhuuriyadda Al-Khawarsimiya. Markii uu arkay xaakimkii magaalada ganacsatadii, wuu qabqabtay uuna laayay. Taariikhyahanadu way isku khilaafaan sababta keentay. Qaarkood waxay leeyihiin nimankani waxay ahaayeen basaasiin uu Genghis Khan u diray si ay u soo basaaseen dowladii Islaamka ahayd, sidaa darteed baa badha saabkii Atrar u laayay. Kuwa kale waxay leeyihiin maya badheer buu u laayay, isagoo u aanaynaya dhaca iyo kufsiga ay Tataarku ka geysteen magaalooyinka ubiga ka dambeeya ee muslimiintu degan tahay. Aragtida soo dhaweysay dhacdadan waa in uu ka daba diray Genghis Khan ganacsatadii koox dagaalyahano Tataar ah
ayna ku dhex shirqooleen wadamadii islaamka si ay Genghis Khan ugu furanto wadadii uu ku geli lahaa dagaalka. inkastoo aan fikradan loo hayn caddayn sax ah, haddana waxaa la sheegay fikradan iyo kuwo kale oo badan, balse waxaa run ah in ganacsatadii ama basaasiintii dhigta dhiigga loo daray. warkii ayaa soo gaadhay Genghis Khan, isaguna warqad ayuu u diray Maxamed bin Khawarizmi, uuna kaga codsanayay inuu gacanta u soo geliyo gacan ku dhiiglayaasha si uu isagu u xukumo. hase yeeshee Maxamed Khawarizmi wuxuu cabirtay in ay tahay meel kaga dhac looga dan leeyahay madaxda muslimiinta. haddii uu dhiibo muslim dembi galay si loogu xukumo waddan kale iyo sharci kale waa nasiib xumo. wuxuu u diray waraaqu ku leeyahay waxaa xukumi doona waddankooda. haddii ay ku caddaadaan oo la xaqiijina waxaa la marin doonaa qaanuun biyo kama dhibcaan ah, waana shareecada islaamka. hadalkaasi inkasta uu eegay hadal asluubi ka muuqdo oo dadka oo dhan qaadan lahaa, haddana Genghis Khan ma noqon mid uu qaato amaba uu ku qanco. ama waxaad tidhaahdaaba ma ahayn mid uu doonay inuu ku qanco, ee waa reer aan doonay roobmaygu eriyey. xaqiiqadu waxay tahay in Genghis Khan uu diyaariyey qorshe aan hore waxba looga arag, oo ah in lagu duulo dhulka islaamka. waxa uu raadinayay cillad yar oo sabab noqoto dagaal dhaca. dabcan halkaana waxaa uga furmay waddadii uu raadinayay. waxaa soo kici tamay ciidankii cabsida badnaa ee Tataar oo u soo jeeda dhinaca Khawarizmi. waxaa bilaabmay duulaankii ugu horreeyay ee uu Tataar usoo kabayladay dowlad muslim ah. waxa uu Genghis Khan la soo baxay ciidankiisii tirada badnaa, Maxamed Khawarizmina kuwiisiiba la soo baxay. foodaa la istaray 4 cisho oo xidhiidhana birta la iska asliyey. meesha la iska helay waa webiga Sayxuun, iminkana loo yaqaan Sardaariya. wuxuu dhacaa dowladda Kazakhstan ee muslimka ah. waxaa labada dhinac iskaga dhigtay bashar aad u badan. goobtan oo qura waxaa ku shahaado qaatay 20,000 oo muslimiin ah. waxaa Tataar kaga baktiyey 2 laab iyo ka badanba intaa. kadib waa la isku nastay dib u gurasho ayuu ku sameeyey ciidankiisii Maxamed Khawarizmi. markuu arkay in ciidamada Tataarku yihiin faradhaaf, waaba uu la baxay ciidankiisii si uu dhufays uga dhigto magaalooyinkiisa waaweyn ee ku dhex yaalla waddankiisa, gaar ahaan caasimaddiisa Orjanda. dagaalkaas dhiigga badan ku daatay wuxuu dhacay sanadii 716. wuxuu ku mashquulay Maxamed Khawarizmi ciidan urursasho daafaha dowladdiisa ballaaran, laakiin ilaa uu mayno inuu xiriirka u jaro gabood fallana u geystay khilaafadii Ciraaq iyo boqorradii kale ay jaarka ahaayeen. sidaas ayay ku noqotay dowladdii Khawarizmiya mid ka casilan dunida muslimka oo go'doon saaran yahay. waxaa u caddaatay in keligeed iyo Tataar ay is heli doonaan, maadaama aan waddamada kale ka dhaxayn xidhiidh iyo iscaawin. dowladdan inkastoo ay tahay dowlad awood leh oo markii hore wax iska celisay, libidna lagala seexan, haddana ma ahayn mid u babac dhigi karta Tataar iyo dhirbaaxooyinkeeda isdaba joogga ah. waxaa muslimiinta dhex yaalla khilaaf ba'an oo joogto ah. markay wax yar heshiiyaan ayna u midoobaan la dagaalanka Tataarka, ayay iskhilaafayaan isdhagrayaan isna laynayaan sidaynu arki doonno. waxaa la ogay in cidda ay sifooyinka noocan oo kale ah lagu arko aanay cadowgooda guul kala carraabin. waxay ahaayeen muslimiintu wakhtigan kuwo badhbabadh kala halaago, basaaso, sirtooda bixiyo. markaa la yaab ma leh in Tataarka iyo kuwa la midka ah ay ka guulaystaan. weliba ku darso dhibaatooyinka ay keenaan in la kala furfuro ummaddu waxay horseedaan halaag. Maxamed Khawarizmi wuxuu ku dhacay khalad aad u weyn. wuxuu dhufays ka samaystay caasimaddiisa Orjanda, isagoo cidleeyay oo aan kaga iman gobolladii kale wax ciidan ah oo ilaaliya. maxay tahay sababta ugu dhacayo hogaamiye dagaal khaladka intaa leeg ee faashilka ah? ma ahayn khalad loo sameeyey kaarta dagaal oo bilow ah, balse waa damiinnimo iyo maangaabnimo akhlaaqi ka maran tahay. wuxuu ku hamiyey inuu la baxso naftiisa, qoyskiisa iyo qaraabadiisa. waxaa la yaraatay oo uu fududaystay inuu ilaashado shacabkiisa. wuxuu aad u ilaashaday khasnadihiisii dahabka ah iyo kuwii waalidiintiisa, wuxuuna dayacay hantidii iyo sharaftii shacabkiisa. waa tusaale cad in ay jabayaan dadka ay majaraa u qabtaan madaxdaas oo kale. aynu eegno waxa ay ku dambeeyeen maalmihii Maxamed Khawarizmi. muxuu sameeyey Genghis Khan dagaalkan kadib? kale oo ila eeg wixii la baday waddankii muslimka ahaa.